dadkiina noogu yimi meesha oo noogu sharfay waa idinku mahadinaynaa waana idin soo dhaweynaynaa waxaa jira hadba ninba dalbu ku abtirsadaa abtiriskaygu reer baydhabood weeye maxaa jira aabbahay wuxuu ka guuray baydhabo 1922 buu ka guuray xamar buu guuray xamarna 35 buu ka guuray Puntland buu aaday marka arrimahaas waxaan kaga horeeyaa ragga baydhabood ka sheeganaya intayn dhalan bay ahaayeen ana marka uga jifisan jifi kalena waa ahayo waxa weeyaan ninka madaxweynaha ah oo maanta meesha lagu caleema saaray oo madaxnimada qabsaday ka horeysay oo nin hore hayn jiray marka labada arrimood buu idinku soo dhawaanaya waan idinku baahidinaya ninka madaxweynahana waxaan leeyahay waa kugu hambalyeynaa jagada madaxweynaha waxaan leeyahay waa ku hambalyeynaa jagada uu loo doortay oo ninka kale uga horeeyay inuu meesha ka abaabulo hagaajiyo baana rakajeynaa wuxuuna cuskanaya waxa weeye dadku waxa uu ku shaqeeyaa ilaahay khaliifa wakiilkii dalka wuxuu ka adduunka wuxuu ka dhigay bani aadam marka nin kasta oo jooga maanta waxa weeye nabi daawud arintiisa uu taagan yahay dhulka khaliifa aad uga tahay wakiil baad uga tahay ilaahay nin walba hadaad wax beesidna waxaad noqonaysaa adaa mas'uul ka noqonaya hadaa waxaan ajinaa adaa xasanaad ku noqonaysaa marka cabdikariim waxaan leenahay inaad wakiil adduunka ka tahay oo aad u taagan tahay meeshii nabi daawud ku xisaabtan cadaaladna u sameeya dadka oo ninba hadaayo wuxuu ku yiri dadka u garqaybaya ha u garqaybina cadaalad ku kala saar cadaalad garqaybtu waxa weeye meel kasta bari ka dhaa laakiin waxa weeyaan cadaalad ku kala saar oo waxaad isu keentaa Soomaaliya oo dhan anigu markii aan Koreega ahaa waxaan garanayaa iyadoo aan Soomaalidu wax dalka ka baahnaa wax kala cunin Puntland weli waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkeenii dabaaldega ee aan caawa caleemasaarka ugu feesteynayno ama ugu xafladeynayno madaxweynaha cusub ee sida aad ku aragtaan South West of Somalia ama koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow xilka uu kula wareegay Dr. Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow maadaama aan kamid ahaa dadkii wax ka qaban qaabiyay sida ugu qurxoon ee munaasabadan caawa Dr. Cabdikariin Maxamed Cali madaxweynihii hore dawladii koonfur galbeed ee Soomaaliya uu xilka ugu wareejiyay jeclaan lahaa bal inaan in yar ka iraahdo taariikh nololeedkiisa Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow wuxuu ku dhashay magaalada Baydhabo gobolka Baay ee dalka Soomaaliya sanadkii 1963 wuxuuna waxbarashadiisii dhinaca diinta islaamka ka bilaabay dugsigii Macallin Ibraahim ee xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo ee dalka Soomaaliya sanadkii 1970 wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe ka bilaabay dugsigii lagu magacaabi jiray Isha Baydhabo halka dugsigii sarena uu kaga baxay 11 Janaayo dugsigii sare ee la oran jiray kaas oo uu dhamaystay sanadkii waxbarashada ee 1982 ilaa 83 wuxuuna sanadkii 1985 ilaa 87 wax ka baranayay maxadkii magaalada Muqdisho ku yaalay ee la oran jiray maxadkii Sidam dhinaca kale Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow wuxuu waxbarasho iyo shaqaba u tagay dalka Saudi Arabia halkaas oo uu ka soo bartay xisaabaadka markii uu dhamaystay waxbarashadii uu wax ka baranayay dalka boqortooyada Saudi Arabia shaqo ka bilaabay waxaa ganacsiga ee magaaladaas ku yaala oo lagu magacaabo supermarketyo waaweyn oo lagu magacaabo Sarawaad iyo Alhamra oo uu ka noqday chief cashier ugu dambaystiina loo magacaabay ku-xigeenka ama deputy manager ku-xigeenka xarumahaas Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow wuxuu Soomaaliya dib ugu soo noqday horaantii sanadkii 1992 xilligaas oo ay dagaal ka socdeen guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuuna ka mid noqday ganacsatada waaweyn ee magaalada Muqdisho howlgalladii qaramada midoobay ee Soomaaliya 1990 iyo labadii ilaa 95 socday wuxuu ka mid ahaa howlwadanadii ka howlgali jirtay muddadii u dhaxaysay 92 ilaa 95 Cabdikariin Maxamed Cali Yaanyurow wuxuu ka mid noqday xubnihii guddigii fulinta ee dhaqdhaqaaqii la oran jiray Raxan Wayne Resistance Army ee gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya 1995 wuxuuna madax ka noqday guddigii arrimaha dibadda ee ururkaasi RRA
sanadkii 99 ilaa 2001 cabdikariin maxamed cali yaanyuuro wuxuu noqday wakiilkii magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya u fadhin jiray dhaqdhaqaaqaas Raxan Weyn Resistance Army ee ciidamada wax iska cabinta Raxan Weyn ugu dambeyntii cabdikariin maxamed cali yaanyuuro wuxuu u soo guuray ama u soo wareegay magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska ee caawa munaasabadiisu ay ka dhacayso wuxuuna waxbarasho ka bilaabay hoose macadka ama kulliyadda college ee magaalada London wuxuuna sanadkii 2004 halkaas ka bartay xisaabaadka iyo payroll administrationka kadibna wuxuu waxbarasho ka bilaabay jaamacadda South Bank University ee magaalada London isaga oo dhameystay sanadkii tagay ee 2010 kooban ee madaxweynaha caawa halkan aan ugu dabaaldegayno maamul goboleedka South West of Somalia madaxweynaha lafsadiisa inuu kelmadii halkan ku haboonaa iyo gabagab haye waliba maqla tirin maxamed cali الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين سيدي يا رسول الله إنك قد بلغت الرسالة وأدلت الأمانة ونصحت الأمة وتركت البيضاء كالليلها كالنهارها أوصيكم والنفس بتقوى الله العز وجل لأن العزة كل عزة لله واعلموا أنكم قدم بين يدي الله موقفون وأن أعمالكم يحاسبون فستعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عباد الله الضمد إلهي وحان يدنكو سلام يا مرلبات صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharafi ah in aad maanta igala soo qayb gashaan xafladan ama munaasabadan lagu caleema saarayay runtii farxad aad u weyn ayaan dareemayaa kalsooni aad u weyn ayaa i gashay mar haddii taageerayaashii ama bulshada qeybaheeda kala gedisan ee Soomaalida oo dhan ay ka soo qayb galeen waan dareemayaa in uu waqtiga uu cariiri u yahay dad badan meel qaarkood ay ka yimaadeen fog balse wixii aan ku hadli lahaa oo dhan waa lagu hadlay hadal badan haan ma buuxsho hadalkiisi yar iyo kiisi badanna meel un buu isugu tagaa waxaan marka ugu horeysa u hambaleynayaa dhammaan wixii ka soo dadkii ka soo qayb galay maanta xafladan yimid waan u hambaleynayaa waxaan halkan ka xusayaa oo aan u hambaleynayaa dhammaan dawlad goboleedyadii ka soo qayb galay xafladan anigoo mid aan u sheegaynin waan u mahad celinayaa sida sharafta leh ama sida fiican ay nooga ajiibeen invitationkeena si ay noogala soo qayb galaan xafladan walaalayaal mudanayaal iyo marwooyinba waxaan idin sheegayaa ma aha South West of State Somalia markii ugu horeysay la dhisay dad badan oo halkan ka hadlayna waa ka sheekeeyay waana ka hadleen si practical ah waad u aragteen ninkii xilkaas ay madaxweynaha ka ahaa Dr. Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud oo xilkiisi si toos ah meeshan iigu wareejiyay khayr Allah siiyo marka waa la sheegay taariikhda waqtigii la aas-aasay dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxaan ka mid nahay ama dawladdan ay ka mid tahay 6 gobol oo isu tagtay maaha wax qabiil ah maaha wax dadka lagu dulminayo maaha wax dhibaato dadka loogu geysanayo ninkii David Stephen la dhigi jiray 2003 oo ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya loo soo diray yaa waxaan isku aragnay aniga isaga Djibouti wuxuu yiri Soomaaliya waxay u kala qaybsami doontaa dawlad goboleedyo si loo gaaro dawlad dhexe oo Soomaaliya oo isugu timaado taasoo loo arkay in ay tahay mid cadaalad ah
marka lixdan gobol waa baasiboolkii waddanka waaye waa meeshii maanta dhaqaalaha waddanka u yaalay waaye waxaan u baahannahay inaan raadinno walaalaheena Soomaaliyeed ee kale ama dawlad goboleedyada kale ee Soomaaliyeed ee nala mid ah inaan raadinno isu keenno soo celinno midnimadii iyo qarankii ummadda Soomaaliyeed iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed leeyahay waxaan idinka ilaahay hortiisa idinkaga ballan qaadayaa inta karaankayga inaan soo celiyo sharaftii Soomaaliya ay lahayd gaar ahaan sharaftii digil imirifle ay ku lahayd ummadda Soomaaliyeed gudaheeda walaalayaal waxaan taageersanahay dawladda federaalka Soomaaliya ee Sheekh Shariif hogaaminaya waxaan idin sheegayaa in aan la shaqeyn doono maamul goboleedka iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya aan madaxweynaha ka caawo oo la ii caleema saaray waxa ballan igu ah dawlad kasto Soomaaliya la dhisay inaan la shaqeyno horeyna nabadda ayaan loogu bartay haddaan ogahay digli mirifle dadka degan goboladan waa dad iska beeraley ah waa dad iska xoololey ah waa dad runtii jecel ama ka go'an ummadda Soomaaliyeed in ay u horseedaan mar walba nabadda marka waxaan mar labaad aan taageerayaa walaalayaal dhammaanteen idin leeyahay dawlad goboleedyada dhan u sheegaya in ay soo dhaweeyaan ay la shaqeeyaan dawladda ku meel gaarka ee federaalka ee Soomaaliya ee Sheekh Shariif uu hogaaminayo marka taas weyn aan dhisno ayaa kuweenan ay hagaagayaan ummadda Soomaaliyeed way istaqaanaa taariikh baan leenahay nin kasta taariikh uu leeyahay nin walbana gobol uu ku yimaado nin lagu xumeynay gobolkiisana ma jirto nin walba oo lixdan gobol ka tirsan iyo ummadda Soomaaliyeed gobol kasto ay degan tahay waa soo dhaweynaynaa gacan saar la leenahay waana madaxa turkiisa naga saaray waana la shaqeynaynaa mar labaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sidii sharafta iyo walaaltinimada iyo Soomaalinimada aad dhammaantiin uga soo qayb gasheen xafladan munaasabadan waxaan idin sheegayaa taariikhda iyada isqoraysa ninba hadda kor waxa la yiri waa loo martiyay ninba loo martiyay markuu waxa la yiri magaca hebelow markaas wuxuu yiri loogo lagu bajoog waaba lagu joogaa waa lagu fadhiyaa ninkii dawlad goboleed sameysana waa soo dhaweynay waana ka soo qagalaya ummadda Soomaaliyeed wixii loo qabanay in meeshii looga hadlay dawlad goboleed iyo Soomaali nabadeynteed wixii ka shaqeynay waa ka qayb galeen anaga diyaarna oo nahay laakiin mid ma yeelano ina jalaafo loo dhigtid ina naga horimaatid adoo waxba qabaneen hadda dadkii wax loo qabaneen lagaana qaban karin macnaheedu meeshii u socoto aan naqaanaa waxaan u taaganahay ummadan inaan annaga cadaalad u soo sinaan iyo cadaalad ya ilaahay idinkiisa gaarsiinayna dadka nala noolna waan runtii waa ku xisaabtamayna waana soo dhaweynaynaa waxay naga halaabo oo maanta oo meeshan ka halaabay ama idinka aad dareentaan ama wax kale maartay oo dhibaato idinku ahna inaan naga raali ahaatiin yaan rajaynayaa marka waxaan uga baxayaa warkayga waxaa kusoo gabagabaynayaa in amar labaad anigoo wixii hadda aan ku hadlaya mar labaad aan ku hadlaya afkeygii aan u dhashay ee maayga ama digli mirif afka ilaahay bismillahir rahmanir rahim walaalayaal salaamantiin boqoliyo mi afarta quraanka ka salaamantiin salaanka bacd may farxad weyn in isin geedka ka qayb galaan munaasabadu oo qiimaha ka fadhiida oo sadafay lahan suubi oo dad badan ka shaqeeyay muddo lama sano la ka shaqeeyay iyo wayba sin kambaleena sidii isin ninka ajibteen in isin geedka waqtigan qaaliga in isin hanin hurtaan oo awlaadiha ka tabtaan bil amil ra'iis wal meelder ka koytaan gobolka koytaan wadan kale ka koytaan oo wadanku mahayna runtii eed iyo sinka mahadnaqaana wali kale oo mahadnaqay dhamaan intii ka qayb galay oo meel ra'iis dawlad goboleed kasta oo meel roogto ya hambal yeeye waan wilaha eeda sinka faraxsana
sida isin geeka isin inka ajiibteen in isin ka qayb galaan eedan isin ka galeen Soomaali ma iraasad doohay doolkiin tarawhay ilan dooga sidiis ba hadii geeka dhan hadale anare ilaa ay toortoora qogo isku hadal korto laakiin way badan baahaya in doog wallahi gaabi waayo walaaga ana ka hadal fadhi oo dhan runtii dad badan la qaadeen anoo aqoon badan oo fayl oo karti badan dowlad badan ka hadleen mas'uuliin badan ka hadleen doctor badan ka hadleen dhalinyaro badan ka hadleen ana hata mansuurna inaan khudbay hata maayna lianna walaaga ana sheegay fadhi waa wali sheegay laakiin inay hata marlamaad in maadaama lanki madaxweynaha ay lanka wareerne abaawl in kama ama lanku inta fadhi in kama dadkul in kama saas daraadii ay harsi horsurmi inaan madaxweynaha in ogaatan walaalayaal qolna ma inteegana nabad digili marifna madi hor balina ka saay nabadana ka saay dhaqan allahayni dhaqan qaarana wal ka saay dadka shaleedo geeka Soomaaliya oo meel 3 sano hadii abaar dhiida hata dhul jallo kooyay bakaarto la aamay dadka dhawaaya inna bakaarada ay lankiin ka saana bakaar wali baleeray meel masjidka la ka shoo igaleeyay digirta la ka shoo taasa Allah hada jirle abi isirin lahayni ummadan macna lankiin kooy marteena niil aamay hooradaas niil aamay ano hadalkay ka bahaw walaaw geeka la suugay dowladgoboleedu walaata geeka bilawda ma 1957 ki halgamaagii digil imirfla Abdulqaadir Maxamed Aadan Zoob ilaahay in xariisada iyo wali geemay weydiiyay walaan hadda geeka ana ka hadalooy taasna wali bangata usu dhaxal oo usu ka dhaxalne ini unu geeka usu meeli usu shalay jeey ini unu meeli ka qaadno halgamaagii Xasan Maxamed Nuur shaar guduud iyo halgamyaalkii usu hadla shaqay sida xaabsade oo kale Maxamed Ibrahim xaabsade iyo Sheekh Aadan Maxamed hoos ma ana teegna geeka iyo kalsoonida geeka aan iska qobo waliba dadkii aan ka dhaxali waayay oo ay barbaariyaan siyaasadda iyo aygeliyay waana ambaleeye walaalayaal marlabaad siin salaame ee aan qodbama macnaha ma hadhikan walaaga masqantay ka jiray siin sheegay waliba Soomaali ma indange geeka ma indange ini una sheegno ini una shalba biinime هو بشلبيس ولا كترو مرة لا شلبي مركو مرلمات وحن كل قناة دي أفريقيا وحن إذا كعسنا يا إن أمة الصومالية نكس مسؤول بكسارية إلا سكانه أنا وحن أتاجنا أمة الصومالية عدالة إن أصور أن كسر دوية حق يسلانتنا عن سمينية وحن كسر جنا أمة كسر اسكوديس أمة كسر اسكوديس إلى سبدور سإقاته ولا لو حن رادينا وحقنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله Soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taagdarane taageera weligiine
xubnood ku magacaabay inuu madaxweyne ka noqdo South West State yaanyuuro waxaan dhahaynaa mas-uuliyadda lagu saaro ma aha mid ciyaaro ma aha waxaa loo baahan yahay inaad u fiirsato tallaabooyinka aad qaadayso cadaaladda ku dadaasho dadka waxay eed u haystaan madaxdii waxaa waaye cadaalad xumada inaad la dagaalantiin ayaa rajaynaya mahadsanidin wayahay mar labaad waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qaybgashay xafladdan aadan idinkugu mahadnaqaya waxaan filayaa markaan dadku waa daaleen waxaan isleeyahay dadkii maadaama ay daaleen oo ay guryahoodii niyadda ay ku hayaan waan fasaxaynaa barnaamijkana saciid iyo dadka daadinaya waxaa la keenayaa